raashin loogu talagalay ardayda dhigata fasallada hoose ee dugsiyada dowladda ee ismaamulka Mandheera ee uu dhowaan bixiyay barasaabka ismaamulka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada Mandheera. Howlgal ballaaran oo ay maanta sameeyeen waaxda xoojinta dowladda ismaamulka oo ay hogaaminayeen agaasime Cabdiqaadir Bariija iyo ku-xigeenkiisa Ibraahim Rowow iyaga oo kaashanaya booliska ayaa waxaa lagu soo qabtay 2 habeen ah oo lagu tuhmay in ay ku lug leeyihiin iibinta raashinkaas. Mudane Cukaash Cabdulaahi oo warbaahinta u faahfaahiyay arrinkan ayaa digniin u diray suuqleyda iyo maamulayaasha dugsiyada ee ku dhiiranaya in ay iibiyaan raashinka loogu talagalay ardayda. Maanta oo Axad ah taariikh 19 bisha 2 2023 waxaan soo gaaray in cuntadii ilmaha iskuulada ardayda nursery loogu talagalay oo iskuulada la geeyay in suuq lagu iibin hayo. dadweynaha ka mid ah ayaa noo soo sheegeen. dabagal baan ku sameynay meelihii aan tagnay waxaan ku soo aragnay store cuntadaas lagu gaday iyo dad gaday ka becsharanahay ayaan aragnay. dadkina waa la soo xareeyay, waa la qabtay, gacan bay ku jiraan. alaabtana waa la soo qabtay, gacan bay ku jiraan. police station Mandheera ay yaalaan. marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa cuntada abaarta jirta dadkeed dhibka jira darteed ayaa dawladda Mandheera County waxay ugu talagashay cuntadaas ilmaha iskuulka ku jiraan in la siiyo ayaa loogu talagalay. ma ogi in la iibiyo ama laga beecshirto looguma talagalin. marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha waxaas oo kale laga waantoobo. ujeeda ilmaha loogu talagalay oo iskuulada la geeyay waxaa la rabaa in loo kariyo ilmahaas oo ilmahaas ay lagu saaciday. laakiin in suuq la geeyo lagu iibiyo oo beecsharo lagu sameeyo ma ogolin, ma diyaarno ma nihin. marka ninkii waxaas oo kale lagu arkayna dambigaas isaga iska leh, saasaad ogaanaysin. hadda tan suuq Metameta ayaan dhexmarnay, waxaan soo aragnay store meesha alaabtaas lagu iibiyo. dadkii iibinayeen waa la soo qabtay, police station ay ku jiraan. ilaa hadduu yiraahdo waqti dhowna maxkamad baa la geyn doonaa. macallimiinta maamulayaasha iskuuladeen waxaan leenahay walaalayaalow, arrintan arrin fool xun way, wax qaab daran way. marka in laga waantoobo ayaan faraynaa. cuntadaas ilmahaas masaakiintaas looga talagalay in aan suuq geyno oon faa'iido iyo lacag aan ka raadino waa ceeb iyo fadaaxad.